gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhanka arrimaha bulshada Sheekh Xuseen ayaa waxa uu sheegay in 20 qof dad gaaraya ilaa imika aan lagu haynin nolol iyo geeri kuwaas oo kamid ahaa dadkii saarnaa doon saaka ku qalibantay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyay sida ay imika xaaladu tahay. wallahi iyo hadda waxaan joognaa meesha buuqaadan joognaa dhagaxdiisan joognaa waxa ka dib weli waa la leeyahay yoomana hadda lagu raadinaa waxna waa la helo waa la keenay inta badan la isku maqan yihiin marka hadda kulli insha Allah dagaal badan socdo maamulka heer gobol heer degmo iyo dhamaan ay wadaan marka waa hawsha waa socotaa. Sheekh Xuseen waxaad noo sheegtaa dadka markii hore doonta qalimaysay imisa ay ahaayeen tirada guud sida hadda la sheegay laakiin waxay ahaayeen baa la leeyahay ama 28 meelaha la sheegaya waxa laga haayaa hadda inta kala maqan yihiin xagee u socdeen xageeyse ka yimideen waxa waa maamulka u badnaa waa maayaradii magaalada Muqdisho oo maayaradii magaalada Beledweyne aan leeyahay oo shalay la soo gaartay iyo xubno kale oo yacni muhiim ah gudoomiye hore gobolka Hiiraan Cabdifaax waa badnaayeen marka waxay soo socdeen shalay ay soo gaareen halkaan shalay marka waxay u gudbeen xagga saaki marka waxay soo socdeen ceel gaar soo socdeen marka alaabihii shalay ay keeneen ee waxa marka ay naga qayb qaataan qayrintooda ama diintooda marka saasi socdeen maamulka marka laga soo tago yaala saarnaa oo kale oo doonta saarnaa wallahi inta badan dadku waa badnaayeen maamulka dad kale la socday kuma taqaana marka la soo raacay dad baa soo raacay marka insha Allah hadda kulli markii hadda waa fadhina waa joognaa ilaa saaksa u nimid waa yahay hadda imisa qof baa la badbaadiyay tirada dadka maqanna waa imisa gaadiidii aan hadda hayna waa ku dhex jirnaaba hawshii aan wadnaaba meeqa qof baa maqan raadinaysaan meeqa maqan raadinaysaan hadda kulli waa inta badan hadda waxa waaye waa raadinaya oo hadda doomana hadda shaqeynaya gurmada socdo ciidamadii baa shaqeynaya booliiskii nabadgudii militariga kulli ciidamadii baa shaqeynaya waan gartay gudoomiye tirada dadka maqan waa imisa oo la raadinayo 20 hadda naga maqan 20 qof baa maqan nolol iyo geeri wax un lagu hayo ma jirto Soomaa dhexna waa la hayaa 20 maqan sida hadda aan wararka aan ku helin 20 qof ee maqan nolol iyo geeri lagu ma hayo Soomaa 20 qof ee maqan nolol iyo geeri midna lagu ma hayo Soomaa wallahi geeri haastaan waa la sheegay wax la soo hadda oo la soo helay waa la sheegay wili marka waxa waaye markaan hawsha la soo gudbiyo oo ku sano ka dhacjaan marka aan dhii doonaa saas waaye dileedkooda la helo markaas aan sheegi doonaa laakiin hadda waaye gurmada socda hadda ma hordici karno gurmadka aad hesheen ilaa imika intuu leeyahay marka ma jirta caawimaad dheeraad ah u baahan tihiin ma gurmadka idinku yar ka waran gudoomiye wallahi hadda kulli hadda anaga inta badan hadda waa alxamdulillah mar hadii ciidamadayna ay shaqeynayaan mar hadii dooman ay marka ay noo joogaan mar hadii ay shacabkina la shaqeynayaan waxaan leenahay bal markuu u horeeyay gurmadda waa la sii daayaan laakiin markuu u horeeyay hawsha inaan anaga ku filanaad muddaa oo hadda hawsha oo nagu sii kala markii aan aragno oo hawsha soo gabagabeen ka dhacdan wixii dheeraad oo loo baahan yahay marka insha Allah shir jaayada la qaban doono waa la sheegi doonaa hadii Ilaahay raaxo insha Allah